Xujaydan oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa 600 oo qof ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kuwaas oo sanadkan si toos ah u tagaya dalka Sacuudiga kadib dadaal ay sameysay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ka sugootiyay garoonka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya محمد أبوكر محمد oo ah gudoomiyaha midowga duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliyeed ee SATA ahna gudoomiyaha xamlooyinka sanadkan xajinaya ayaa sheegay in arrintan ay ku timid dadaal ay sameysay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada oo iskaashaday waxaan aad u mahadcelinaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan taasoo ay ugu horeeyo wasiirka gaadiidka xilka dhulka maariyaha garoonka Ethiopia Airways maamulkeedii iyo dhammaan xamlada New Hope anagoo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka SATA ahna gudoomiyaha xamlada New Hope waxaan aad ugu faraxsanahay maanta flight-ka aan leenahay taasoo aan aad u soo dhaweynayo si jawi wanaagsan ay ku dhamaatay waxaan rajaynaynaa flight-kan inuu noqdo flight-kii ugu fiicnaa oo direct flight ah oo Muqdisho to Madiina ah maareeye xigeenka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa xusay in garoonka Aadan Cadde ay duulimaadyo toos ah ka sameeyaan shirkado duulimaad oo caalami ah raxiim dhammaan waxaan mahad u celinaynaa hay'adaha ka qayb galay abaabulka iyo habwanaaga maamulka xujayda annaga kan garoon ahaan Aadan Cabdulle Cismaan waxa meesha ka muuqata inaan diyaar u nahay capacity oo levelkiisa aad u sareeyo qaabilaadda diyaaradaha aad u waaweyn iyo passenger service-ka sidaas daraaddeed insha Allah tacaala sanadka dambana waxaan rajaynaynaa sidaan iyo si ka awood badan waa mahadsantiin Professor Cabdiraxmaan Ibbi oo ah gudoomiyaha African Express Soomaaliya oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in laamaha dowladda federaalka Soomaaliya si wada jir ah ay ugu shaqeeyeen sidii xujayda Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa gudashada waajibaadka diiniga iyo gudoomiye ku-xigeenka ama maareeye ku-xigeenka Aadan Cabdulle Cismaan gudoomiyaha mataqaanaa xamlada New Hope iyo General Manager-ka Ethiopian Airways Dr. Martella waxaan runtii aad uga mahadcelinaynaa maanta qadarin iyo sharafna leh in la sheego in markii ugu horeysay runtii taariikhaha ay ka mid tahay Soomaaliya in xujayda lagu qaado diyaaradaha ugu dambeeya ugu cusub ee 787 ama Dreamliner loo yaqaano oo runtii Soomaaliya maqan waa markii ugu horeysay timid aan u maleynaya markii ugu horeysay ay timid si ay noo sheegayaan madaxda gegada iyo wasaaradda gaadiidkaba wasaaradda awqaafta iyo diinta runtii doorkeedii shariifka ah way ka soo qaadatay xagga abaabulka iyo maamulkii ka soo bixista xagga arrimaha xujayda waxaan aad u dhameystiray laakiin wasaaradda gaadiidka oo runtii aad moodo gegadii oo hadda aad moodo inay aad u yaraatayba maanta waxaa ka baxaysay 600 oo qof waxaa garan kartaan immigrationkii madaxda wasaaradda gaadiidka xerka iyo dhulka aqoon jiray lagada duulista hawada lagu daray iyo madaxdii mataqaanaa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan oo loo kala harin in loo shaqeynayo waxaan runtii aad ugu mahadcelinaynaa dowladda wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo garoonka ka sugootiyay xujaydan ayaa dhankiisa sheegay in si dhow xaaladda xujayda ay ugu warqabi doonto wasaaraddiisa waxa maanta sharaf inoo ah in markii ugu horeysay ay ka soo degto garoonka Aadan Cabdulle diyaaradda 787 Dreamliner loo yaqaano waa diyaarad aad culeyskeedu u weyn yahay dad badanna qaada rakaab aad u tiro badan qaada diyaaradani waxa isweydiin shaki ku jiray dad badan shaki ooga jiray in garoonka Aadan Cabdulle uu qaadi karo diyaarado culeyskaasi la eg maanta waa tusaalihii ugu horeeyay kuba kale oo diyaaradahani ka waaweyn oo dhinaca militariga iyo qayb kasta ayaa ka soo degi jiray garoonka maantana waxaa ka soo degtay diyaaraddii ugu weyneed ee Dreamliner-ka oo markii ugu horeysay ka soo degtay garoonka Aadan Cabdulle waxay qaadaysaa xujayda Soomaaliyeed ayay si toos ah Muqdisho inta uga qaado Madiina u geenaysaa waddanka Sacuudiga u geenaysaa xajkoodii su'aalo badan oo laga weydiiyay maxaad u siiseen diyaaradda Ethiopian Airlines direct flights maxaad ugu ogolaateen inay Muqdisho ka baxdo Sacuudiga si toos ah u tagto
waa simply waxaan ugu oggolaanay inaan u fududeyno xujayda Soomaaliyeed in iyaga oo waddankoodii hooye ka baxay oonan ku dhibaatoonin meel kale aanan transit dheer ku marin meelo kale in si toos ah ay uga baxaan Muqdisho ay ku gaaraan 2 saacadood gudahood Sacuudiga meesha ay u socdeen si ay xujayda uga yaraato dhibaatooyinka transitka iyo sugitaanka badan ee diyaaradihii kale ay ku heli jireen. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal xooggan gelisay sidii isbedel loogu sameyn lahaa tayada adeegyada ay helayaan xujayda Soomaaliyeed iyadoo ay suura gelisay in dalka gudihiisa laga qaato fiisaha oo xujayda ay ku helayaan sanadkan hab electronic ah. Xasan Kahye, Som News TV, Muqdisho.